goorsan daawadayaal waa mar kale iyo wararkii xulya xaqiiqi ee aad ka barateen alool media TV qaybtan maanta waxaynu daaha kaga qaadaynaa haddii aan la idmo itiraafka ruushku la rabo jabhadda bariga Ukraine yihiin dadka iyo dhulku ma yahay mid dowlado noqon kara maxaase ruushka ugu jira aqoonsiga maamul goboleedyada Donetsk iyo Luhansk taariikhdu waa 19 February 2022 daawadayaal shaaha soo qaata oo soo dhawaada warar ka soo baxay qasriga ruushka looga arrimiyo ee Kremlinka ayaa sheegay in xildhibaanada baarlamaanka ruushku ay codsi u gudbiyeen madaxweyne Vladimir Putin codsigaas oo ku aadan in dowladda ruushku aqoonsi buuxa siiso jabhadaha bariga Ukraine arrintan ayaa noqonaysa weji kale oo Putin ula dagaalamayo dowladda Kiev maamul goboleedyada Donetsk iyo Luhansk ayaa ah maamulo hadda iskood isu maamula iyagoo si weyn ugu tiirsan dowladda ruushka beesha caalamka ayaa dhulkan u aqoonsan qayb ka mid ah Ukraine balse ruushka ayaa hore sirdoonka reer galbeedku ugu sheegeen in haddii uu waayo Ukraine oo isku dhan inuu waslad u goosgoosan doono waxaana jirta in 2016 uu gobolka Crimea ka xalaaleystay dowladda Ukraine haddaynu eegno xogta dhulkan waa laba degmo oo isku dhow Donetsk aynu ku horeyno waa degmo weyn marka la barbar dhigo degmooyinka ku hareeraysan dadka ku nool Donetsk waxay gaadhayaan 918,000 oo qof baaxadda dhulka ayaa ah 358 kilomitir waxaanu ku yaalaa koonfur bari ee dalkaas Ukraine maamulka Donetsk waxaa hogaamiya gudoomiye Denis Bazhilin oo 40 jir ah degmada Luhansk ayaa wehelisa Donetsk oo deris la ah waxaa ku nool Luhansk dad tiradoodu tahay 409,900 dhulka degmada Luhansk wuxuu ka kooban yahay 257 kilomitir waxaana hogaamiye u ah Leonid Besheshnik labada maamul ayaa 2014 si wada jir ah ugu dhawaaqay in ay ka tala goosteen dowladda Ukraine Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa arrintan aqoonsiga ku tilmaamay weerar ruushku ku qaadayo Ukraine oo ka xun mid uu u isticmaalo ciidamo la arkayo waxay sheegeen in haddii uu ku dhawaaqo itiraafka labadan maamul goboleed ay dhammaanba jari doonaan wada hadallada xal u raadinta xiisadda Ukraine xogayaha Mareykanka Antony Blinken ayaa si gaar ah u eedeeyay baarlamaanka ruushka waxaanu afka ku dhuftay in aan arrintani ahayn mid dejinaysa xiisadda taagan balse ay agta ku sii walaaqayaan colaadda Kiev dhanka kale hogaamiyaha degmada itiraaf doonka ee Donetsk Denis Bazhilin ayaa baraha bulshada ka sheegay in maamulkiisu bilaabayaan in ay dadkooda u daadgureeyaan dhinaca ruushka si ay uga samato bixiyaan madaafiic ciidamada Ukraine ku soo garaacayso waa sida hadalka uu u dhigay hadalka ka soo yeedhay hogaamiye Denis ayay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon ku tilmaamtay marmarsiyo ruushka ay ka filayeen oo ay hore u saadaaliyeen madaxda reer galbeedka ayaa muddo hadda saadaalinayay in ruushku weerar ku soo qaadi doono markaasna ku qabsan doono Kiev saadaashaas waxaa ka dhigaya mid saxda u dhow satalaadyo reer galbeedku leeyihiin oo sheegay in ciidamada ruushku ku soo dhawaanayaan caasimadda Kiev oo hadda ay u jiraan wax ka yar bay yiraahdeen 30 kilomitir waayahay daawadayaal xul iyo xaqiiqooyintii aanu haynay waa naga intaas inta kulanka xiga aynu ku kulmi doono waxaanu idinkaga tegaynaa dhammaantiin ammaano Allah